waa marin biyood dhererkiisu ka yar yahay 200 kiiloomitir balse kala qaybiya laba qaaradood oo waaweyn isuna keena laba badood oo kala fog. maanta waxaanu u kurgalaynaa mid ka mid ah mashaariicda ugu waaweyn ee uu bini'aadamku gacantiisa ku dhisay. waa kanaalka ama marinka Suez, halkaas oo uu ganacsiga dunida ku nafiso loolanka quwadaha adduunkana uu ka bilowdo. waa 193 kiiloomitir oo biyo ah, laakiin wuxuu go'aamiyaa masiirka 8 bilyan qof oo adduunyadan ku nool. ma ogtahay in mashruucan uusan dhismi lahayn haddii aan la isku darin dhiig iyo dhidid? sidee laakiin ayuu dhiig iyo dhidid ugu dhismay? maxayse tahay sababta uu weli u yahay halbowlaha ay adduunyadu ku hardamayso? jawaabahaas iyo xogo kale oo kasii muhiimsan ayaanu muuqaalkan dokumentariga ah kugula wadaagi doonaa oo aanu kuga haynaa ee nala soco. halkan waa Itaal Media. inta aan sheekada toos u guda gelin aan marka hore ilbiriqsiyo kooban isla faraxno. weli waxaynu ku guda jirnaa maalmihii dabaaldega ee abaalmarinta sanadka. wixii hadda ka dambeeya waxaanu suran doonaa derbiga iga dambeeya, halkaas oo aanu taariikhdiisa iyo xasuustiisaba ku ilaalin doono. dokumentariyada kale oo soo socdo dhanna wuu ka soo muuqan doonaa. aadaad ugu mahadsantihiin markasta garab istaagiina iyo dhiirigelintiina. wax aan ku cabirno oo aan idinkugu mahad celinno ma naqaano, laakiin waxaan idin leenahay aada u mahadsantihiin. waayahay aan bilowno. haddii aad si fiican ugu fiirsatid khariirada adduunka, marinka Suez waa marin u qaabaysan si cajiib ah, kuna yaala bar muhiim ah oo isku xirta bariga iyo galbeedka. haddii uusan jiri lahayn marinkan, maraakiibta ka timaada qaaradda Aasiya ee ku socota qaaradda Yurub waxaa qasab ku noqon lahayd in ay ku dul wareegaan qaaradda Afrika oo dhan, kadibna sidaas ku gaaraan Yurub. safarkaasi waxa uu ku kordhin lahaa masaafo qiyaastii 9,000 kiiloomitir ah iyo socod muddo toddobaadyo dheeraad ah. laakiin taas hadda ma dhacdo, waxaana sahlay marinkan Suez. maanta qiyaastii 12 ilaa 15 boqolkiiba ee ganacsiga caalamka waxa uu dhex maraa marinkan yar. waa marinka go'aamiya qiimaha shidaalka, cuntada, bagaashka iyo agabka elektarooniga ah ee aad hadda gacanta ku hayso ama hareertaada yaalla. mid aan ku xusuusiyo, mashruucan ma ahan mid si fudud ku yimid kadibna si sahlan lagu hirgeliyey. wuxuu soo maray marxalado iyo heerar kala duwan. naf, maal iyo waqti ayaa ku baxay. dad ayaa u dhintay si kuwa nool ay ugu nacfiyaan. laakiin sheekada mashruucan halkan kama bilaabato. waa riyo kumanaan sano ka hor soo jirtay, laga soo bilaabo faraacintii Masar ilaa Napoleon Bonaparte. mid kasta waxa uu doonayay in uu gooyo dhulkan ciriiriga ah oo uu isku furo labada badood si uu u xukumo dunida inteeda kale. annaga hadda sheekadan waxaanu ka soo bilaabaynaa waqti intaasi ka dhow oo ah bartamihii 1850aadkii. waa waqti aan isleenahay dhacdooyinkii dhacay badankood weli waa la xasuustaa, sidaas darteedna tanna si fudud ayaa lagu fahmi karaa. waayahay sanadkii 1854 diblomaasi Faransiis ah oo lagu magacaabi jiray Ferdinand de Lesseps ayaa waxa uu u yimid Saciid Baasha oo ahaa barasaabkii xukumayay Masar oo waqtigaasi ku hoos jirtay xukunka dowladdii Cusmaaniyiinta. wuxuu ka dhaadhiciyey in la qodo marin biyood isku xira badda Cas iyo badda Mediterranean-ka. waxa uu u sheegay in mashruucan uu Masar ka dhigi doono xarunta isu socodka adduunka. aad ayuu u qalqaaliyey oo uu u qalqaaliyey hirgelinta mashruucaasi. ugu dambeynna waxaa la aasaasay shirkadda caalamiga ah ee marinka Suez, taas oo bilowday qabanqaabo xoogan oo fikirka in ficil loogu bedelo ah. ujeedada de Lesseps ma ahayn horumarka Masar, ee ujeedadu waxay ahayd mid ay wadatay una adeegayay danaha dowladdiisa Faransiiska. waxay ahayd in Faransiiska uu gacanta ku dhigo wadada ugu muhiimsan ee adduunyada. xilligaas Ingiriiska ayaa waxa uu xukumayay badaha iyo ganacsiga dalka Hindiya.
Delesabes waxa uu rabay in uu abuuro marin ay Faransiisku leeyihiin oo ka gaaban kana dhow kan uu Ingiriisku isticmaalo oo ahaa safar ka soo baxa Hindiya oo ku wareegaya qaaradda Afrika dhammaanteed kadibna sidaas Yurub ku gaara si ganacsiga Faransiisku uu noqdo mid ka raqiisan kana dhaqsi badan kan Ingiriiska. Faransiiska sidaas ayuu u qalqaaliyay Masar in marinkaasi ay furto oo ay ku shaqaysato. Faransiisku wuu ogaa in xilligaas aysan Masar awood dhaqaale u lahayn hawshaasi mugga leh. Waxaa la rabay in deyn fara badan garka loo geliyo, deyntaasna laga siiyo bangiyada Yurub marka ay iska bixin weysana maamulka Suez sidaas loogala wareego. Alxaasil 25 Abriil 1859 waxaa si rasmi ah loo bilaabay shaqadii ugu horeysay ee mashruucan. Laakiin halkan waxaa ka bilaabatay sheeko xanuun badan. Waqtigaas ma jirin mashiinada casriga ah ee aan maanta naqaano. Marinka intaas la eg masaafo ahaan maxaa lagu qoday mataqaan? Waxaa lagu qoday gacmo bani aadam. In ka badan 1 milyan iyo bar oo beeraley Masaari ah ayaa beerahoodii laga soo waday laguna qasbay in ay ka shaqeeyaan saaxarahaasi kulul ayaga oo aan la siinin wacyigelin ku filan isla markaaba aan ogeyn sababta dhabta ah ee dhulkan loo qodayo. Waxa ugu weyn ay haysteen waa badeelo. Dadkaas waxay ku shaqeynayeen xaalad aad u adag oo biyo yaraan, cunto xumo iyo cudurro isugu jira. Xanuuno ay ka mid yihiin daacuunka ayaa dilay in ka badan 120,000 oo shaqaale ah. Dhiigga dadkaasi ayaa ku dhex milmay ciidda ka hor inta uusan biyaha baddu soo gaarin meeshii la rabay. Shaqadan adag waxa ay qaadatay muddo 10 sano oo xiriir ah si loogu guuleysto qodista 193 kiiloomitir. Ugu dambeyntii bishii November 1869 dunidu waxa ay indhaha ku kala qaaday wax mucjiso u eg oo Masar ka dhacay. Waxaa la furay marinka Suez iyada oo la sameeyay dabaaldeg weyn oo ay ka soo qayb galeen boqorada iyo madaxda Yurub. The opening of the Suez Canal in 1869 changed the world. Maraakiibtii Faransiiska iyo kuwa Ingiriiska ayaa noqday kuwii ugu horeeyay ee ka gudba biyahaasi cusub. Balse dhismaha kadib ma noqon mid nabad ku caanamaala. Markiiba waxaa ka dhashay loolan gumaysi. Sanadkii 1882 Ingiriiska ayaa soo caga dhigtay Masar si uu gacanta ugu dhigo marinka Suez. Xukunkii Cusmaaniyiinta ayaa si tartiib ah halkaas uga daciifayay xilligaas ilaa la soo gaaray sanadkii 1914 oo ay dawladdii Cusmaaniyiinta ka qayb gashay dagaalkii koowaad ee adduunka iyada oo la safatay Jarmalka. Ka qaybgalka dagaalkaas waxa uu keenay in gebi ahaanba ay dunto dawladdaas oo gacanta ku haysay dhul aad u ballaaran oo caalamka ah oo ay ku jirto Masar. Tallaabadaas waxaa si weyn uga faa'iideystay Ingiriiska iyo Faransiiska oo si siman gacanta ugu hayay marinkaasi muddo dheer ilaa laga soo gaaray xilligii Jamaal Cabdinaasir uu talada Masar la wareegay isla markaana ku dhawaaqay qaramaynta shirkaddii gacanta ku haysay marinka sanadku markii uu ahaa 1956. Tallaabadaas waxay horseeday dagaalkii caanka ahaa ee Suez. 26 Julaay 1956 fagaaraha Almaanshiya ee magaalada Iskandariya madaxweyne Jamaal Cabdinaasir waxa uu kaga dhawaaqay go'aan ruuxay caasimadihii adduunka ugu xoog badnaa. Wuxuu si dhiiran ula hadlay shacabkii iyo warbaahintii goobta joogay. Waxa uu cod dheer ku yiri wixii maanta ka dambeeya waxaanu dib ula soo laabanay xuquuqdeena. Marinka Suez waa mid ay Masar leedahay sidaas ha lagu seexdo hana lagu soo tooso. قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة go'aankaas kuma fulin si nabad ah. Ingiriiska iyo Faransiiska oo u arkayay marinkaas hanti ay iyagu leeyihiin iyo Israa'iil oo doonaysay in ay wax uun ku yeelato ayaa markiiba isbahaysay qarsoodi ah samaystay. Kadibna waxay ku xijiyeen in ay soo qaadeen weerar dhanka cirka, dhulka iyo badda ah kaasoo loo yaqaanay the Suez Crisis. Waqtigaasi waxaa dhacay mid ka mid ah khiyaanooyinkii military ee ugu weynaa qarnigii 20aad. Waxaa kulan qarsoodi ah yeeshay Ingiriiska, Faransiiska iyo Israa'iil. Waxay isla gaareen qorshihii gurracnaa ee loogu magac daray Protocol of Sevres. Qorshuhu waxa uu ahaa mid khiyaano xambaarsan.
israa'iil ayaa weerar ku soo qaadi lahayd saxaraha Sinai si ay Masar ula gasho dagaal dhulka ah. markaas kadib Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa sheekada ku soo biiri lahaa sidii ciidamo nabad ilaaliyaal ah oo kale, iyaga oo Masar iyo Israa'iil ka dalbanaya in ay marinka ka fogaadaan masaafo 10 mayl ah. haddii Masar ay diido, waaba sidii la rabay. Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa markaas awood military ku qabsanaya marinka Suez. laakiin qorshahaas markiiba wuu dhicisoobay. Masar ayaana guuleysatay. sidee ayaad isweydiinaysaa ma? qorshuhu waxa uu ahaa in Israa'iil ay weerarka bilowdo 29 Oktoobar isla sanadkaas, kadibna Ingiriiska iyo Faransiiska ay dhowr maalmood kadib soo saaraan wax loo yaqaano ultimatum ama digniin kama dambays ah, oo ay labada dhinacba ka codsanayaan in ay 10 mayl ka fogaadaan marinka. laakiin waxay dhahaan too fast, too obvious. waxa aad loogu degdego hore ayaa laga garan karaa. Ingiriiska iyo Faransiiska ma sugin in qorshahoodii nabad ilaalinta uu u muuqdo mid dhab ah. digniintoodii waxa ay soo saareen ayada oo xaaladdu ay weli bilow tahay. sababtuna wax kale ma ahayn, ciidamadii Israa'iil ee ay ka sugayeen in ay dhul badan qabsadaan ayuu jab xoogan ku bilowday. taas darteed waxay ku qasbanaadeen in ay Israa'iil ka soo gaaraan inta aysan xeero iyo fandhaal kala dhicin. saacado gudahood markii uu dagaalkii bilowday ayay digniintoodii soo saareen, taasoo caalamka tustay in ay iyagu weerarka ka dambeeyeen oo ay soo maleegeen. Jamaal Cabdinaasir waxa uu ahaa nin indheer garad ah, xeeladda dagaalkana si fiican u yaqaana. isla markii uu helay digniintii Ingiriiska iyo Faransiiska waxa uu gartay in ay tahay dabin si wada jir ah looga soo wada shaqeeyay. isaga oo aan ilbiriqsina sii sugin ayuu caddeeyay mowqifkiisa oo ah in uu ku gacan saaray dalabkooda. ciidamada Israa'iil waxa ay ka dagaalamayeen dhulka Sinai inkasta oo jab xoogan uu ku socday. 2 maalmood kadib diyaaradaha Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa iyagana bilaabay in ay duqeeyaan garoomada diyaaradaha ee Masar. ciidamo dalaayado ku soo deganaya ayaa waxa lagu soo daadiyay magaalooyinka Port Said iyo Port Fuad. dagaal faraha looga gubtay ayaa waxa uu ka dhex socdaa markan gudaha Masar. military ahaan isbahaysiga saddex geesoodka ayaa u muuqda in uu dagaalka ku adkaanayo, laakiin Masar waxa ay ku adkaatay siyaasad ahaan. Jamaal Cabdinaasir markii uu xaalkii qiimeeyay waxa uu soo saaray amar culus oo indhaha caalamka soo jeediyay. fariin culusna u diray, kaas oo wax weyn ka bedelay hanaankii dagaalka. Jamaal muxuu sameeyay mataqaan? wuxuu amray in la quusiyo 40 markab oo taagnaa marinka Suez. sidii ayaana la yeelay. markiiba dowladaha caalamku waxa ay ogaadeen in marinkaas oo nabad ah uun ay iyaga dan ugu jirto. labadii quwadood ee waqtigaasi cusbaa, Mareykan iyo Midowgii Soviet, ayaa ka carooday weerarkii ay dowladahaasi qaadeen. madaxweyne Eisenhower oo Amerika ka talinayay ayaa ku hanjabay in uu dumin doono dhaqaalaha Ingiriiska haddii aysan ka bixin Masar. isbahaysiga saddexda ahaa waxay Masar kala kulmeen wejigabax caalami ah. waxay ku qasbanaadeen in ay dib u gurtaan ayaga oo gacmo maran. Jamaal Cabdinaasirna waxa uu isu muujiyay in uu yahay geesiga u soo baxay dunida Carabta iyo Afrika. damicii gumaysi ee Israa'iil, Ingiriis iyo Faransiis ee xilligan casriga ahna waxaa lagu aasay ciidda marinka Suez. laakiin mar kale ayuu dib u soo faagmi doonaa. waa 10 sano kadib markii uu joogsaday dagaalkii the Suez Crisis. sanadkii 1967 marinku wuxuu haddana noqday jiidda hore ee dagaalka. kadib dagaalkii 6 maalmood, Israa'iil ayaa qabsatay gacanka Sinai, taasoo keentay in marinka la xiro. 8 sano oo xiriir ah ma jirin wax markab ah oo maray Suez. 15 markab oo xumuul ah oo loo yaqaanay the Yellow Fleet ayaa ku xayirmay gudaha marinka, iyaga oo halkaasi ku baaba'ay intii ay colaadu socotay. marinkii adduunka isku xiri jiray waxa uu isu bedelay godad laga soo rido madaafiicda iyo difaac military oo aan in la maro iska daaye xitaa aanba loo dhowaan karin. aan u imaano 6 Oktoobar 1973. waa maalintii taariikhda marinka Suez dib loo qoray.
ciidanka Masar ayaa ku dhawaaqay mid ka mid ah howlgalladii military ee ugu yaabka badnaa qarnigii 20aad. waxay jebiyeen darbigii Barleef oo ahaa difaac ciid ah oo ay Israa'iil ku sheegtay in aan la dumin karin. ciidamada Masar waxa ay halkaasi ka gudbeen iyagoo isticmaalaya kaliya biyo cadaadis sare leh. kumanaan askari ayaa doomo kaga gudbay iyaga oo ku dhawaaqaya Allahu Akbar. dagaalkaasi waxa uu dib u soo celiyay kalsoonidii ummadda Masar, wuxuuna horseeday in sanadkii 1975 uu marinku mar kale u furmo ganacsiga caalamka, isaga oo markan gebi ahaanba ku jira gacanta dadkii lahaa. sheekada ku saabsan dagaalkaasi 1973 horey ayaan documentary uga diyaarinay. waa taariikh xiiso leh, waad soo daawan kartaa haddii aad u baahan tahay. dagaalkaasi kadib waxaa dhacay weeraro iyo dagaalo kale oo lagu doonayay in lagu qabsado ama ugu yaraan lagu carqaladeeyo habsami u socodka shaqada marinkaas. dhibic kasta oo biyo ah oo ku jirta marinka Suways waxaa ku milan dhiig askari ama dhidid shaqaale. waa marin lagu kala furtay 6 dagaal, balse maanta waa buundada nabadda iyo dhaqaalaha adduunka. taariikhda marinka Suways iyo difaaca dhulka Masar ma ahan mid ku kooban dadka u dhashay dalkaas oo kaliya. xilliyadiisii ugu adkaa waxaa hiil iyo hooba la garab taagnaa ummadaha kale oo ay ugu horeysay Soomaalida. xiriirka labada shacab ma ahayn mid ku kooban mid diblomaasiyadeed, balse waxa uu ahaa mid ku dhigan dhiig iyo dhuux bini aadam. tusaale, dagaalkii Oktoobar 1973 markii ciidamada Masar ay isku diyaarinayeen in ay ka gudbaan marinka Suways, Soomaaliya ma ahayn mid daawada ka ah. madaxweynihii waqtigaas Maxamed Siyaad Barre waxa uu amray in ciidamo Soomaaliyeed loo diro difaaca Masar. geesiyaal Soomaaliyeed ayaa ka barbar dagaalamay walaalahoodii Masar, iyaga oo qayb ka ahaa difaacyadii looga soo horjeeday ciidamada Israa'iil. waxaa la xusaa in duuliyaal Soomaaliyeed ay ka qayb qaateen howlgalladii difaaca hawada, halka ciidamada dhulkana ay ku sugnaayeen aagaga hore ee dagaalka. tani waxa ay ahayd fariin cad oo dunida loo diray in marinka Suways uusan ahayn kaliya marin Masaaridu ay leedahay, balse uu yahay astaan sharafeed u taagan dhammaan ummadaha gobonimada jecel. kaliya military ahaan looma garab istaagin Masar. Soomaaliya oo xilligaasi ku jirtay mid ka mid ah marxaladaheedii ay ugu sarreysay, waxay Masar u dirtay kumanaan tan oo hilib iyo caano ah si loo quudiyo oo loogu quudiyo ciidamadii jiidda hore ee marinka Suways ka dagaalamayay. waxay ahayd xilli Soomaaliya lagu yaqaanay halkudhigii caanka ahaa inaad walaalka hiil siiso waa waajib diini iyo mid dadnimo ah. taariikhdan waxa ay ina baraysaa in marinka Suways uu yahay goob ay ku kulmeen masiirka ummado badan. markii ay Soomaaliya garab istaagaysay Masar, waxay difaacaysay xididka ganacsiga adduunka iyo madax banaanida gobolka. hadda ma loo og yahay mise looma oga? waa dood kale oo munaasabadeedii ku habboon in looga falanqoodo. marka aan dhinaca dhaqaalaha ka eegno, haddii marinka Suways uu hal maalin xirmo, dunidu waxa ay lumisaa ku dhawaad 9.6 bilyan oo dollar. taasi micnaheedu wuxuu yahay saacad kasta oo uu marinku xiran yahay waxaa luma 400 milyan oo dollar. ma aha oo kaliya biyo ay maraakiibtu dhex maraan, ee waa dhuunta uu ka neefsado dhaqaalaha caalamka. in ka badan 19,000 oo markab ayaa sanad kasta dhex mara marinkan. waxay sidaan wax kasta, laga bilaabo shidaalka lagu kaxeeyo shay walba oo motor ku shaqeeya, qalabka dhismaha, ilaa dharka, cuntada iyo elektarooniga miiskaaga saaran. haddii uu Suways istaago, qiimaha badeecadaha ee saaran dukaanka gurigaaga ku dhow ayaa kor u kacaya muddo saacado gudahood ah. laakiin waxaa isweydiin mudan, maxay tahay sababta ay ganacsatada adduunku u doorbidaan in ay isticmaalaan marinkan? jawaabtu way fududahay. waa waqtiga iyo lacagta. sidee? aan ku sheego. markabka ka soo baxa dalka Shiinaha ee ku socda degada Rotterdam ee Yurub, haddii uu maro Suways wuxuu safrayaa qiyaastii 10,000 kilomitir. balse haddii uu iska daayo Suways
oo uu ku qasbanaado in uu ku wareego qaaradda Afrika marinka Good Hope la yiraahdo. safarkaas waxa uu ku qaadanayaa 19,000 oo kilomitir. wareega Afrika oo dhan lagu dul wareega ah waxa uu markabka ku kordhinayaa 10 ilaa 14 maalmood oo socod oo dheeri ah iyo inuu isticmaalo 100 tan oo shidaal ah. ganacsiga casriga ah hal maalin oo dib u dhac ah waxa ay la macno tahay khasaare malaayiin dollar ah. sidaas darteed Suez ma ahan doorasho ee waa qasab dhaqaale. dalka Masar marinkan waxa uu u yahay isha labaad ee ugu weyn ee uu ka soo galo lacagta qalaad. sanadkii 2023 dakhliga marinkan ka soo galay Masar wuxuu gaaray heerkii ugu sareeyay ee abid oo ah qiyaastii 10.25 bilyan oo dollar. lacagtaas waa tan lagu dhiso isbitaalada, lagu bixiyo mushaaraadka, laguna horumariyo kaabayaasha dhaqaale ee dalkaas. bal suurayso haddii uusan Suez jiri lahayn Masar maxaa ku dhici lahaa, ama sidee maanta u ekaan lahayd Masar. maalgelintii iyo dib u habayntii ugu dambeysay ee lagu sameeyay Suez-ka cusub, New Suez Canal, waxa uu ogolaaday in maraakiibta waaweyn ee loo yaqaano mega ships ay si isbarbar socod ah u mari karaan, taasoo soo yareysay waqtigii sugitaanka. tusaale, maraakiibtu waxa ay isa sugi jireen si ay isu dhaafaan ugu yaraan 22 saacadood, laakiin hadda waqti intaas aad uga yar ayay ku qaadataa. tanna waxa ay marinka ka dhigtay mid aad muhiim ah oo aan lala tartami karin. laakiin muhiimadaas weyn waxay haddana wadataa khatarteeda. sanadkii 2021 waxaa dhacday dhacdo weyn oo halis xoogan abuurtay. 23 Maaj 2021 subax hore oo ay ka jirtay saxaraha Masar, dabaylo xoogan iyo habaas qariyay aragtida caadiga ah. markabka weyn ee Ever Given oo dhirirkiisu uu gaarayo 400 oo mitir, waa in la eg dhirirka 4 garoon oo kubadda cagta ah, ayaa waxa uu ku dhex jiray safarkiisii caadiga ah. laakiin ilbiriqsiyo gudahood safarkaasi waxa uu isu bedelay qarow caalami ah. markabku isaga oo marayay qaybta koonfureed ee marinka oo ah hal wado oo ciriiri ah, dabaylo xoogan ayaa ku dhuftay dhinacyadii markabka. Ever Given oo siday in ka badan 20,000 oo container waxa uu lumiyay dheelitirkii. birta weyn ee markabka ayaa dhinac u jirtay dhoobada iyo ciidda xeebta, kadibna markabkii ayaa leexday si aan ku talagal ahayn, wuxuuna ku xanibmay marinka. sawiradii laga soo qaaday hawada sare waxa ay ahaayeen kuwo naxdin leh. marinkii Suez oo ah wadada ugu mashquulka badan dunida waxaa dhex yaala derbi bir ah oo aan la dhaafi karin. hal markab ayaa gooyay xiriirkii ka dhaxeeyay qaaradaha Aasiya, Yurub iyo Afrika. 6 maalmood oo xiriir ah dunidu waxa ay u muuqatay mid istaagtay. in ka badan 400 oo markab oo siday shidaal, cunto, bagaash iyo agab caafimaad ayaa safaf dhaadheer u galay badda. saacad kasta oo uu Ever Given ku dhaganaa ciidda, ganacsiga caalamku waxa uu luminayay qiyaastii 400 milyan oo dollar. dowladda Masar waxa ay abaabushay howlgal samata bixin oo aan noociisii horey loo arag. mashiinada ciidda qoda iyo maraakiibta kale ee waxjiida ayaa habeen iyo maalin la tacaalayay sidii ay u dhaqaajin lahaayeen markabkaasi weyn. waxaa loolan lagula jiray waqtiga iyo mawjadaha badda oo dabaylo xoogan ay ka soo socdeen. 29 Maaj iyada oo la kaashanayo hirarka waaweyn ee badda ayaa waxaa lagu guuleystay in la dhaqaajiyo Ever Given, dibna ay u furmaan isu socodkii marinka. dhacdadan waxa ay dunida tustay in xanibaad yar oo ka dhacda halkan ay keeni karto qalalaase dhaqaale oo caalami ah. dunidu waxa ay garatay in halbowlaha nolosha uu yahay mid aad u dhuuban, sidaas darteedna uu u baahan yahay difaac iyo ilaalin joogto ah. marinka Suez waa halbeega dhaqaalaha adduunka. waa halka ay ku kulmaan hantida bariga iyo baahida galbeedka. inta ay bani aadamku ganacsanayaan, marinkan waxa uu ahaan doonaa meesha ugu qaalisan ee dhulka dushiisii ku yaala. Suez waa marin biyood muhiim ah, laakiin waa marinka si uu muhiim u sii ahaado ku tiirsan marin kale oo muhiim ah. si aad jumladaasi u fahantid, waa inaad eegtaa dhanka koonfureed, halka ay isku hardiyaan badda cas iyo badweynta Hindiya.
waa marinka baabalmandab. haddii marinka suweys uu yahay albaabka laga galo barwaaqada xeebaha Soomaaliya, iyo marinka baabalmandabna waa furihii lagu furi lahaa albaabkaas ama lagu xiri lahaa. suweys ma shaqayn karo haddii uusan furnayn baabalmandab. labadan marin waxay isugu xiran yihiin sida habdhiska neefmareenka, waa dhuunta iyo sambabada. markab kasta oo ka yimaada bariga fog ama ku socda Yurub waa in uu marka hore soo maro biyaha Soomaaliya, kadibna dhex maro baabalmandab ka hor inta uusan gaarin kanaalka Suweys. tani waa sababta aad u arkaysid maraakiib badan oo dagaal oo ku sugan badweynta Hindiya iyo badda Cas oo leh waxaanu la dagaalamaynaa burcad badeed. tan waa sababta aad u arkaysid Israa'iil oo dhulka raadinaysa xeebaha badda Cas, iyo Turkiga oo xarumo ka dhisanaya xeebaha badweynta Hindiya. waa sababta aad u arkaysid Maraykan, Faransiis, Jabaan iyo Shiinaha oo ku tartamaya saldhigyada ay ka samaysanayaan dalka Djibouti. xeebta Soomaaliya oo dhererkeedu uu ka badan yahay 3,300 kilomitir waa dhabbada ugu dheer ee ay maraan maraakiibta ku socota kanaalka Suweys. tani ma ahan oo keliya wax la xiriira juqraafiyad, ee waa wax la xiriira loolan siyaasadeed iyo mid amni. amniga marinka Suweys waxa uu ku xiran yahay xasiloonida xeebaha Soomaaliya, laga soo bilaabo gacanka cadmeed ilaa badweynta Hindiya. Soomaaliya waa ilaalo dadban ama waardiye dabiici ah oo u adeegaysa ganacsiga caalamka. sababta aad u aragto maraakiibta dagaalka ee quwadaha adduunka sida Maraykanka, Shiinaha, Jabaan iyo Yurub ay ugu qulqulayaan agagaarka baabalmandab iyo xeebaha Soomaaliya ma ahan mid iska yimid. waxay difaacayaan dhuunta dhaqaalahooda oo ah marinka Suweys. carqalad kasta oo ka dhacda agagaarka Soomaaliya waxa ay si toos ah oo haddana isku mid ah u ruuxdaa qiimaha badeecadaha ee gudaha Qaahira, London iyo New York. haddii aan soo koobno, Suweys ma ahan oo keliya kanaal biyo, ee waa astaan muujinaysa sida juqraafigu uu u go'aamiyo masiirka qurumaha. inkastoo ay jiraan loolanno dhanka amniga ah iyo tartanka wadooyin kale oo cusub, haddana Suweys waxa uu weli yahay boqorka marinada caalamka. waa halka ay ku kulmaan barwaaqada, hardanka iyo taariikhda bani aadamka. intaas ayaynu ku soo koobaynaa mowduucan tan iyo mowduuca xiga oo aanu soo diyaarin doono. waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo, amaano Allah. halkan waa Itaal Media, anigu magacayguna waa Aways Xaji Nuur Aways R. tan iyo mar kale, nabadey.